markale waa eduxi.com oo idin leh ku soo dhawaada markale eduxi waxa maanta aan rabnaa inaan ka hadalno computerkaaga waxa laga yaabaa mararka qaar kood maalinta gadatay ee hadda inuusan isku mid ahayn marka uu aad slow u yahay marka wax rabtid inaad aadid ama website kale aad tagtid computerka oo dhanba waa slow ma dhaqaaqayo marka waxa suurtagal ah in aad markaas ay kaaga buuxaan wax la yiraahdo spyware ama malware command software ayaga system geliyo haddaba si aan uga saarno computerka marka ugu horeyso waxa taabanaysaa start haddii aad leedahay markaas xp haddii aad leedahay vista isagana waa nooc kale weeye laakiin waxa type garanaysaa waa isku mid meeshan ayaa waxa ku type garanaysaa ms config marka aad taabatid config waxa taabanaysaa marka okay waxa markiiba ku soo baxaya pagekan cusub oo ah system config utility marka ugu horeyso wax kale ma sameynaysto waxa taabanaysaa start up meesha ay ku qoran tahay start up marka waxa weeye waa programmada marka computerkaaga daartid ku soo baxo oo dhan marka waxa suurtagal ah in waxaanu programma aniga hadda aan ka tirtiray oo dhan inay kugu jiraan oo markaas ay ku oranayaan computerkaaga isla markiiba aadayo sababta keenaysa in uu kaaga dahana ay taas tahay marka mid walba waad ka saaraysaa start haddii ay kala garaysanta waa saaraysaa fiiro gaar ah waxaad samaynaysaa qaar badan oo aanan ahayn in la taabto ayaa ku jira meesha haddii aad taabatid uusan softwareka uusan kacaynin marka waa inaad iska hubisaa mar walbo midka aad taabanaysid inuu yahay midkii saxa ahaa ama si program isaga iska buuxiyey siyaabaha aad ku garan kartid inuu program keliya yahay waxaa ka mid ah waxaad fiirinaysaa si program file hadduu yahay markaas program weeye oo dhib malaha marka waa ka saari kartaa laakiin haddii uu yahay fiiri calaamadda ku qoran dhibic /Windows system kaas oo kale ma taabanaysa sababtoo ah waxa weeye systemka ayuu la socdaa oo ha taabanin ha ku cagaarnaato cagaar ha ku ahaato meesha marka startga aad taabatid waxaad ka saaraysaa programmada iyaga isfuro oo barnaamijka daahinayo computerkaaga waad ka saaraysaa tusaale Google Desktop ayaa iigu jira meesha waan ka saaray MSN Messenger waan ka saaray waxyaalaha iigu jiro kale Adobe Gamma waan ka saaray waxaasoo dhan markii ugu horreysay computerkayga waxay ka dhigayeen slow bay ka dhigayeen intaasitan waa mar kale eduxi oo idin leh another cashar kale oo ku saabsan sida uga faa'iideysan lahayd computerkaaga iyo internetka haddii kale waxaad taabataa mar walbo www.eduxi.com